gudaha iyo nabadgelyada difaaca ee golaha guurtida waxaanu kulan la yeelanay isxog waraysiga oo shaqadii maalmeedkii caadiga iyo warbixintii aanu kala qaadan jirnay gudiyada golayaasha iyo hay'adaha nabadgelyadu taliyaha ciidanka booliska iyo wasaaradda dakhliga runtiina arrimihii aanu isugu nimi ee xaaladda dalka si wanaagsan baanu u kala qaadanay maadaama aanu kala fadhigii lixaad ku jirno waxaanu warbixinta wixii warbixinaha u soo gudbin doonaa idinkuna goobjoog ka noqon doontaan golaha markaanu gudbinayno marka waxay ahayd xogtii shaqo maalmeedkii caadiga ahaa ee qaranka ay u hayeen baanu ka wareysanaynay intaasaan ku soo gabagabaynaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa saaka noo yeedhay guddiga waxaanu iska wareysanaynaa xaaladaha nabadgelyo ayaanu iska xog wareysanaynay ee waajibaadka naga saaran wasaaradda arrimaha gudaha iyo taliska ciidanka booliiska wixii warbixina iyo wixii aynu weydiiyeen iyo wixii aanu isdhaafsannay si fiican baanu isu afgarannay marka golahay kolley warbixinta guud siinayaan ka hor dhici maayo haddii aan la yidhaahdo waa ka hadda idiin sheegay guddoomiyaddii balla qaaday in maalintaa goobjoog ahaan doontaan si wanaagsan baanu isu afgarannay howlaha iyaga caadiga ee nabadgelyada ayuu maanu iska wareysanaynay iyo xaaladda guud ee nabadgelyada dalka. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. gudoomiyaha guddida nabadgelyada ee golaha guurtida taliyaha booliiska ayaa warbixintii wixii aanu isnadhiida siiyey. runtii soomaalida waxay ku maamaadaa rag gogoshi waa nabad, dowlad gogosheed waa nabad. mad haddii aanay haysan nabadgelyo waxba dhaqan mayso, waxba dhisan mayso, cibaadada xitaa cidiiri gelaysa. iimaankaa laga horraysiiyey nabadgelyada. waxaanu ka wada hadlay waxay ahayd nabadgelyada qarankan iyo sidii wax looga qaban lahaa. tafaashiisheedana gadaal baa ka heli doontaana kolley golaha guurtida warbixintooda ay ku soo dari doonaan. hase yeeshee waxaanu xoogga saari doonaa haddii la yidhaahdo shuruucda nabadgelyada sidii loo hirgelin lahaa. qodobka weynee ka soo aanu muxuu ahaa doonina idiin sheegno shuruucdii nabadgelyada sidii loo hirgelin lahaa, wixii jirana muxuu ahaa loo hirgelin lahaa, waxay wax ka dhaman yihiinna loo dhammaystiri lahaa ayaanu isla soo qaadnay. dhan walba oo iska tusnay muxuu ahaa nabadgelyada iyo xaaladda iyo qarankani halku marayo. aad baa u mahadsan.